Asalaamu calaykum. Ma xiisaynaysaa barashada dabeecadaha bini'aadamka iyo xayawaanada? Haddii ay jawaabtaadu haa tahay, waddada ugu fudud ee aad ku baran karto dabeecadaha bini'aadamka iyo xayawaanada waa barashada cilmu nafsiga, ama waxa afka qalaad loogu yeero psychology. Psychology-gu waa barashada dabeecadaha, balse psychology-gu waa mid aad u baaxad weyn, waxaana jira dhowr laamood oo uu u kala baxo psychology-gu. Mid waliba laamaha ka mid ah waxaa lagu bartaa dabeecad gooni ah. Tusaale ahaan, social psychology waa barashada isdhexgalka bulshada. Dadka barta social psychology waxaa laga yaabaa in ay isku dayaan inay wax ka ogaadaan xaaladaha sababi kara in ay dadka u dhaqmaan qaab daandaansi ah. Waxyaabaha kale ee baranjigan lagu barto waxaa ka mid ah sababta ay dadka qaarkood ugu helaan dadka kale, iyo sababta ay dadka qaarkood u raacaan waxyaabaha dadka kale sameeyaan. Nambar labo, cognitive psychology waxaa lagu bartaa waxyaabaha la xiriira xasuusaha, afkaarta, iyo luqadaha. Tusaale ahaan, waa maxay habka ugu fudud ee aad ku xifdin karto lambarada qaar? Waxaa wanaagsan in aad ku celceliso lambarada amaba inaad isku daydo inaad micno gaar u sameyso lambaradaas si aad u soo xasuusato. Sidoo kale, baranjigan waxaa lagu bartaa luqadda. Tusaale ahaan, sidee carruurta yaryar u baran karaan luqad labaad si dhaqsi ah oo aad u fudud. Lambar saddex, clinical psychology waa barashada xanuunada ku dhaca maskaxda. Tusaale ahaan, qofka baranaya baranjigan waxaa laga yaabaa inuu isku dayo ogaanshaha sababaha keena walaaca iyo sidii xal loogu heli lahaa dadka maskax ahaanba u walaacsan. Dhakhaatiirta barta clinical psychology waxay sidoo kale daraaseeyaan dabeecadaha dadka isticmaala daraagiska, iyagoo isu daya in ay ka hortagaan daaweynta dadka daraagiska saameynta ku yeelatay. Sidoo kale, waxay isku dayaan in ay ka hortagaan qallaasada, in ay beddelaan dabeecadaha qofka ku dhaqmo ficilada la xiriira arbushaada. Psychologists-yaasha qaar waxay xiiseeyaan in ay cabbiraan tijaabona ku sameeyaan garaadka qofka inta uu gaarsiisan yahay. Tijaabooyinkan waxaa loo isticmaalaa in dadka loogaga caawiyo in ay sameeyaan go'aano la xiriira noloshooda, sida waxbarashada, shaqada, iyo caafimaadka. Dhanka kale, psychologists-yaasha barta dabeecadaha xayawaanada waxaa loo yaqaanaa ethologists. Si ay wax badan uga ogaadaan dabeecadaha xayawaanada, waxay booqdaan meelaha cidlada ah sida keymaha, si ay u daawadaan dhaqdhaqaaqa shimbiraha iyo xayawaanada. Waxayna isku dayaan in ay ogaadaan sababta ka dambeysa in xayawaanada qaar ay isweeshadaan amaba ay isdiriraan. Sidoo kale, waxay bartaan waxyaabo badan oo ku saabsan habdhaqanka xayawaanada. Ugu dambeyntii, cilmu nafsiga waa mid ka mid ah baranjiyada loogu xiiseeyo ee aqoonta. Muuqaalkeena halkaan ayuu ku egyahay. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Tutor Liibaan Mahad. Muuqaalka xiga intaan kaga kulmeyno waxaa idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.